waa 9 fiidnimo xilliga Muqdisho. duulimaadyaduna waa kuwa si caadi ah u soo degaya una duulaya. waa waji cusub oo nolosha habeenkii Muqdisho ay yeelanayso. waa wadada ugu mashquulka badan Muqdisho. ma laha ammaan la isku halayn karo, balse khatarta weerarada habeenkii caadiyan waa ay ka yar yihiin kuwa maalinkii dhaca. nolosha habeenkii Muqdisho waxa ay si tartiib ah ugu soo laabanaysaa sidii ay barisamaad ahayd. taa waxaa laga dheehan karaa suuqyada iyada oo ganacsataduna ay waqti dheeraad ah u heleen macaamiishooda habeenkii dukaamaysta. meheradaha ku yaala faras magaalaha ayaa ah kuwa ugu badan ee ka macaasha isu socodka habeenkii. waxa ay furan yihiin ilaa 12 saqda dhexe. ganacsiga habeenkii iyo maalintii hadda waqtigii hore hadda wax badan u dhaxeeyo. awal habeenkii waqti oo maqrib ayaa la iska xiri jiray. maxay ahaato waa iska rawaxi jiray guryaha xaafadaha la kala aadi jiray. hadda waqtiga habeenkii iyo maalintii habeenkii shaqo badan. dadka habeenkii dukaamaysta waxa ay u badan yihiin kuwa maalinkii shaqeeya. jeeb ahaanna ladan maadaama meheradaha waaweyn ee habeenkii furan ay sicir ahaan aad u sarreeyaan. annaga haddaan nahay bulshada maalintii shaqaysa waxaa faa'iido noogu jirtaa in habeenkii ay sidoo kale uu furan yahay suuqa. waayo maalintii ma heli karno inaan suuq ka adeegano, balse habeenkii oo kale ilaa 6 saac 7 saac xarumaha carwooyinka iyo dhammaan way furan yihiin. marka bulshada waxaan is leeyahay waxay u tahay horumar. ciidamada ammaanka ayaa habeenkii taagan wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho. waxa ay baarayaan gawaarida iyaga oo baadi goobaya gawaari sida walxaha qarxa iyo sidoo kale waxyaabo ka soo horjeeda ammaanka. balse taa ma aanay joojin in ay weeraro dhacaan. ku dhowaad 30 sannadood kadib ayay dadweynaha Muqdisho u soo daawasho tageen ciyaar kubadda cagta ah oo xilli habeen ah la qabanayo. jiilka hana qaaday xilliga burburka ayay uga dhigan tahay dhacdo cusub. cali nuur salaad, BBC, Muqdisho.